waa garoonka weyn ee magaalada Galdogob oo ay joogaan dhalinyaro fara badan iyo dad waaweyn oo ciyaaraha aad moodo hadda inay ka daaleen oo ay uga soo hartay inay isha ka daawadaan. degmada Galdogob waxay ka mid tahay meelaha sida gaarka ah looga xiiseeyo loogana jecel yahay kubadda cagta. waxaa halka jooga dad badan oo sanawaad dheer ama muddooyin badan kubadda dheelayay haddana dhalinta dheesha dhiirigeliya. Galdogob waxay kubaddeelista kala mid tahay dhalinyaradeedu magaalooyinka kale ee Soomaaliya. deegaanada kale ee Soomaaliyeed ama magaalooyinka kale waxaa ka dhacay markaas dhiirigelin iyo waxyaabo loo sameeyo sportska. meelaha qaarkood garoomo waaweyn ayaa laga sameeyay oo loogu dhiirigelinayo dhalinyarada kubadda cagta. taas Galdogob ma ayna helin dhalinyarada oo dhalintoodu waxay ku dheelayaan halkan oo ah barxadda subaxdiina ay ku ganacsadaan dadka gawaarida waaweyn wata ee daabulka iyo rarka iyo raashimada keena. galabtiina ay dhalinta kubadda ku dheelaan oo mararka qaarkood dhagax leh dhaawac iyo dhib badan uu ka soo gaaro. ma jirto haddaba qorshayaal kale oo markaasi maamul haddii ay tahay iyo siyaasiyiin ama mas'uuliyiin kale ay iskugu howlayaan in Galdogob ay haatan garoomo uga sameeyaan. dhalinyaradu waa iska baahi badan tahay, baahidoodu ma dhamaato. caqabado badan baa ka haysta sportiga garoonka u jeedaan. 20 sano u dambeysay ayaa lagu ciyaarayay. caqabadihiisuna waxa weeyaan ma wareegsana. garoon bay dhalinyaradu lahaayeen. garoonkaasi sababaa diiday in lagu dheelo. laftigiisu waa lagu ciyaaray laakiin sababaa diiday. wuxuu u baahan yahay qareemid sababahaas loogu dheeli waayey. ujeedada loo dhisay loogu gudan waayey in la xalliyo u baahan yahay. waxaa ka mid ah garoonkaasi sida caadiyan ah wuxuu ku yaallaa dhul bacaad ah. tartamadii lagu qabtay markii la dhisay waxaa diiday in ciyaarihii lagu sii wado dhulkii oo bacaad noqday. wuxuu u baahan yahay marka in dhulkaasi loo adkeeyo loo saaro roog macmal ah. magacaygu waa Maxamed Cabdiweli ka tirsan dhalinyarada sportska degmada Galdogob. ugu horreyn galabta halkaan lagu soo gabagabeynayaa koobka King Cup ee walaalkeen King Fiqi oo dalka ka dhoofay uu ku soo watiyay dhalinyarta. waxaan leenahay marka hore mahad ka gaarto. marka labaad waxaan rajaynayaa laba kooxood oo CMT ilaahay u qoray inay guush raacdo. inta kadib caqabadaha sida walaalkeen Ibrahim uu sheegay gudoomiyaha hore sportska caqabadaha sportska haysta ay badan yihiin. waxaana ugu horeeya garoonka lagu ciyaaro kubadda cagta ee degmada Galdogob oo aan ahayn garoon u diyaarsan agabkii iyo muunadii iyo muuqaalkii garoomada caalami ay lahaayeen. duna casriya la jooga 2021 marka waxaan ugu horeyn sidaas la mid ah aniguna aan dirayaa baaqaas oo ku wajahan dhammaan xiriirada kubadda cagta ee dalkeena Soomaaliya ee kala duwan kala hooseeya laga bilaabo gobolka Mudug sidoo kale state heer maamul goboleed ee Puntland sidoo kale ilaa heer federaal in garoonkaas dhalinyarta loo dayactiro muddo 6 sano ka badan ayuu dayacan yahay. roogii ma leh laguma ciyaari karo waa bacaad darbigiisa kaliya wareegsan. waxaan rajaynaynaa in baaqeena la soo ajiibo laga soo jawaabo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلام يا مكورة سون ميديا تلفزيون سون ميديا سيد قدر القرآن شرفت القرآن مرة يوسف كبير وحالات أيه المركة ديجان كان ديجان كان مدرب تمرات هم هي King Cup ninka dhalinyarada oo koobka dhalinyarada u dhigay sida quruxda badan ay u daawanayaan. waxaan u maleynayaa 4 meelood 3 meelood kaliya maanta si qurux badan loo daawanaya garoonka. waxaan isu keenay ninkaas aad baan ugu mahadcelinayaa sida quruxda badan oo sharafta badan oo koobka u dhigay. waxaan rajaynayaa dhammaan dhalinyarada reer Galdogob inay sida ay ninkaas oo kale ay koobka ugu dhigaan dhalinyarada. midda labaad aan ku darsanayo oo muhiimka waxa weeye degmada Galdogob waxay ka mid tahay meelaha loogu jecel yahay kubadda cagta Soomaaliya maadaama ay ka mid tahay degmooyinka lagu jecel yahay kubadda cagta oo sida hadda ay daawanayaan garoonka. waxaan codsan lahaa in musharaxiinta iyo cid waliba oo siyaasiyiin iyo cid waliba oo horumarka dadka jecel reer Galdogob inay dhalinyarada
garoon roog oo cagaaran maadaama gaalkacyo uu darisna laha sidaas magaalooyinka dhuusamareeb baran oo hadda ay ka socoto magaalooyinka dhahar oo kale waxaan rajaynayaa sida buuhool oo kale in sidaas si lamid ah loogu kaco aad bay u mahadsan yihiin wiilka isku xilqaamay inay ka shaqeeyaan raadinta garoonka roogga casaa sidaas si lamid ah waxaa codsanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo wasaaraheena inay ka qayb qaataan siday hore ugu qayb qaadan jireen oo kale garoomada cas aad bay u mahadsantihiin saxafiga weyn xaggan media runtii aan sidii kala ka shaqeynaysa horumarka degmada iyo waxbadan ka shaqeysay insha Allah waxaan rajaynaynaa inay ka mid noqoto saxaafadaha waaweyn Soomaaliya waxaan rabaa inaan xaggan fariin uga diro dhammaan shacabweynaha reer Galdogob in ay ka qayb qaataan dhismaha garoonka weyn ee degmada Galdogob insha Allah dhawaan qorshihiisa bilaaban doono waxaan rabaa qurba joogta ay ugu horeeyaan inay ka qayb qaataan sida kala siyaasiyiinta xildhibaanada raadinaya insha Allah waxaan soo bandhigi doonaa guddiga garoonka mar dhow insha Allah aad baan u mahadsantahay assalaamu calaykum hada bilaan ka bacdi ka dhalinyaro sport ahaan waxaanu aad iyo aad aynu uga cabanaynaa ama caqabado weyn nagu haya in badan oo waxyaabihii sportka horumarinta u ahaa inaynu aan haysan sida garoon horumarsan oo dhalinyaradu ay qoobkooda iyo ciyaarahooda iyo xulkooda ay kasoo bandhigaan inaan haysan sida ogtihiin koobka hadda u dambeeyay ee ka dhacay gobolada Puntland magaalada Garowe koobka waxa qaaday gobolka Sanaag gaar ahaan Highland gaar ahaan caasimadiisa la geeyay Bahar waxyaabaha aynu ka baranay waxa kamid ahaa in dhalintu ay aad isugu abaabuleen inay helaan garoonka roogga cagaaran oo sportska degmada hadda aysan lahayn Soomaaliya ay aad hadda ugu taamayso inay hesho garoomo international oo koobka lagu qaban karayo sportska aad ugu horumarin lahaa degmadeenu ma lahan garoon hadda weyn haysanaa laakiin ma ahan garoon horumarsan oo roogga cagaaran yaalo waxyaabihii kale looga baahnaa aan lahayn waxaan marka aad iyo aad aan u jeclaan lahaa dadka ka soo jeeda deegaanada ay ugu horeeyaan qolyaha hadda raadinaya musharaxiinta ah ee raadinaya baarlamaanka inay barnaamijkaas naga qayb qaataan waxaan u mahadnaqayaa wariye Imaan Maxamed Gaani oo galabta barnaamijka quruxda badan garoonka ka sameynaya marka labaadna waxaan rabaa inaan u mahadnaqo gudoomiye ku-xigeenka iyo isboortiga degmada Galdogob Kingi Fiqi Faarax oo runtii koob qurux badan galabta halkan ku soo xirmin doona Ilaahay oo isagu maalgeliyay waxaan leeyahay gudoomiye aad baad u mahadsan tahay marka xigana waxaan rabaa inaan wax yar aan ka ilaahdo wad ujeedaan meesha ay dhalinyaradu ku ciyaarayso geesta dhashay waxaa taagan baabuurtii xamuulka degmada Galdogob u kala gooshay deegaanada kala Puntland waxaan moodaa inuusan u ekeen meesha meel garoon ah degmada Galdogob waxay u baahan tahay garoon casri ah oo la jaanqaado garoomada kale ee Puntland waxaan halkan baa uga diraya wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada ciyaaraha dowladda Puntland anigoo ku ammaanaya wasaaraddu inay shaqo fiican ka hayso garoonka degmada Galdogob siiba wasiirduulaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada ciyaaraha dowladda Puntland Marwo Firdawsi Cusmaan Xigaal oo runtii gacanta ku haysa inay degmada Galdogob yeelato garoon casri ah rajaynaysana horaanta sanadkan cusub in degmada yeelato garoon casri ah waan uga mahadnaqayaa shaqadaas sidoo kale waxaan halkan uga mahadnaqayaa maamulka degmada Galdogob ugu horeeya gudoomiye Cabdulfaar Sheekh Ibrahim oo asagana 24 saac mar walba muhiimad siinaya in garoon casri ah yeelato degmada Galdogob